soo dhawaada saaxiibayaal Ramadaan Kariim mawlahayna la aqbalo camalada wanaagsan ee aynu gudanayna bisha barakaysan ee Ramadaan ku soo dhawaada darsigeena labaad ee dhiganayna la magac baxay 13 kala soo dhawaada dhacdadiisa labaad nasabkii iyo koritaankii nabiga nasabka nabiga oo ay tahay in aynu barano sida aynu keenno naqaano way fiican tahay waxaana weeyay محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن قسين بن مدرك بن مضر بن نسار بن معد بن عدنان هل كي يهويد النبي هي آمن بنت وهب بن عبد المناف بن زهرة بن كلاب بن مرة waxaana aragtaa in nabiga iyo hooyadii ay isku yimaadaan dhanka abtirsiinta awowga shanaad ee Kilaab bin Murra nabiga hooyadii waxay naaska jaqsiisay 7 casho kadibna waxa ay naas nuujisay Suwayba al-Aslamiyya inta kadib waxa nabiga koriyay Halima al-Saadiya oo uu la joogay ilaa 5 sano 6 sano kadib waxa loo soo celiyay hooyadii isaga oo 6 sano jir ah ayaan nabiga hooyadii aamina geeriyootay waxaan noloshiisa iyo koritaankiisa la wareegay oo garab ka u ritay awowgii Cabdulmudallib waxaana uu la dhaqmi jiray dhaqan aad iyo aad u wanaagsan oo aad baa ugu jeclaa markii uu dhintay awowgii waxa nabiga koriyay adeerkii Abu Talib nabiga oo ay da'diisu tahay 8 sano iyo bilo ayaa adeerkii la safray oo waxay qabteen dhulka Shaam halkaas oo lagu arkay astaamihii nabinimada laguna taliyay adeerkii inuu dib u celiyo si aan dadka warkiisa kutubtii hore ku hayaa u dhibaateyn iyagoo ay ka tahay xin iyo xasidnimo markii ay daadiisu gaadhay 15 ayaa uu isla Shaam la soo qabtay maal ay lahayd Khadiija bint Khuwaylid oo ay iyadu gacan galisay si uu ganacsi ugu sameeyo waxaana la socday wiil ay dhashay oo la oran jiray Maysara markii ay daada nabigu gaadhay 25 jir waxa uu guursaday Khadiija bint Khuwaylid oo ay da'deedu tahay 40 jir haddaba markaynu ka nimaadno dhacdadeena kooban waxaynu u tagno 13 aynu dhacdadan koobanna ka baranayno كو إن dadka aqoonta ama rajayda ah wax badan aynu daryeelno ma ogin bari waxa ay noqon doono iyo halka uu umada oo ka gali doono ayayna wajiga iska xumayn xaq alle iyo xaq aadanaba waxaana uu nabigu sheegay in qofka koriye ee daryeela qof aqoona uu isaga jannada kula saaxiibayo inaguna haddii aynu Soomaalinahay aad iyo aad ayay noogu dayacan yihiin aruurta guriyaheena joogta ee aynu haysano ama cid qaraabada ay dhashay oo ay noo keeneen ama inagu ay ka soo kaxaysanay halkan wuxuu qoraagu noogu sheegay qiso oo isagu si iskiya loo kulmay oo wuxuu oranayaa waxaan la darisahayd gabadh dhashay ubad badan inta ay koreen ayaa qaarkood la guursaday oo ay caruur dhaleen wax xaafada la joogta inan yar oo ay gabadha guriga leh walaasheed ka dhimatay nolosha ilmaha yar ku nooshahay alla ayuunba korkeeda ayaanu ka aragnay jirdilka baaxadda weyn ee ay la nooshahay jexjeexa wajigeeda ku yaala qofka arkay unba sawran kara hawsha dibadda laga soo qabanayo iyada ayaa qabata si kasta oo ay uga tan iyo taagba weyn tahay afkeedu ma yaqaan dholahadeenta way in la raro oo sida agab koronto ku shaqeynaya loogu shaqeeyo mooyee waxay ku dholahaday sameeyay waxbarashada haba sheegin tani waxba kama aha boqolaalka caruurta ama dhilinta ah ee dhiigga laga jaqo guryaha hoostooda cid codkooda dibadda u soo saartana way waxa safar xad ah in dulmiga aanu alle abaalkiisa inta badan akhriba la sugin ee daalinka ifku tuso hooga xumaantii uu faray labo qofku markuu yar yahay noo saaran miyiga oo laga helayo laba qodob oo kala ah inuu qofku afkiisa hooyo si wanaagsan u soo barto iyo labo inuu jir ahaan soo adkaado maadaama shaqooyinka miyiga laga qabanayo badanka ay yihiin kuwii u badan in gacanta laga qabto casharka saddexaad ee ka baranayno saddex amiyada ay leedahay amaanadu waya guurku nabigu wuxuu Khadiija guursaday wax codsiga uu ka yimi iyada oo aad una dhacday habkii amaanada lahayd ee uu nabigu sallallahu alayhi wasallam u maamulay maalkii ay dhibatay mas'uulkana uga dhigtay haddana wuxuu qoraagu halkan weli wadaagaya qiso kale oo isagu la kulmay waxaan oranayaa inaanu asxaabnahay oo shirkad ka mid ah kuwa agabka gawaarida iibiya mas'uuliyiinteeda ka mid ah ayaa mar uu ii sheekay wuxuu igu yidhi dhalinyartii waxay ka cabanayaan shaqo la'aan annaguna waxaanu ka caawinaynaa shaqaale la'aan oo waxaan ku wili sidee bay suura u tahay wuxuu igu yidhi waxaanu doonaynaa dad aanu ku aamino xoolaha ummadda ee aanu gacanta ku hayno iyaguna aragtidii ammaanada ma laha
xaqiiqada marka loo dhaadhacana kama soo baxaan howlaha loo eegmaday in ay ilaaliyaan. intaas ayaynu ku soo koobaynaa dhacdadeena maanta iyo 3 cashar. wiilankeenu wayna 30 cisho ee rabadaanta dhamaysana 30 dhacdo iyo 3 cashar. aad buu mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.